قرحي مثل العالم أنت حلو في الشباب iyo siku boo ku arkaa waana xamar weyne meeshan waa meel oo ganacsi oo dadka ay aad uga ganacsadaan oo isku yimaadaan farxad weyn oo la fariistaa ay leedahay marka anigu waxaan fadhinay marka maqaaxida shafeega hadda laga cabay halkan wajeeda horaan fadhinay aan badnayn anigu ku sugan isla fadhinay marka ninka oo sita qaraxa raakeedka ayaa wuxuu dacmada albaabkuna soo galay albaabka iyo wiilasha horaan fadhiyey waxaa u dhaxaysa wax ka yar 5 talaabo marka meesha waxaa fadhiya waardiyihii ayaa ku baariyey marka waardiyihii baa gacanta ku qabtay toos si ma garanaysaa dagaal oo xataa iska fiirsan weli degdeg ah ayuu qaatay dhici gaaray xab buu orday askari kaloo dhinac kale taaganaa wuxuu bilaabay xabad baa ka soo wuxuu iska gelin inta marka xagga xamuulin dhinaca kale ayuu galay daafid si maray xaggaas u caaray marka city mall bisamo ayuu ku dhaxaarey anaga marka waan baawnay waan la kacay qof kasta uu jaagroobay ninkii dhagax haystay ninkii uu haystay waxa weeyaa meesha wala ka kacay kadib luuqii markuu ku orday uu soo wareegay city mall baxaga kala soo wareegay saldhig hortiisa markuu socday ayuu ka xidhay laakiin nin gudub jiray oo la caybsanayay oo la baacsanayay oo baashi toray buu ahaa laakiin xaqadu waxay tahay meeshan soo qarxinayo waa meel ay shacabku kaliya ay joogaan oo ganacsigu joogo oo ay caruurta iyo dumarka iyo shaqada ka socota nolosha ka socota kii dadka waayay iyo aadanka waayay ciidan ma joogo ciidanka meesha waa waadiin goobta ganacsiga runtii wixii dhacay wuxuu ahaa laakiin kasaaro badan ma muuqdaan waa lagu tegay waana arrin la yaabkeeda in goobo noocan oo kale ay qarxeen المقاعد او اللي يسعلون من جده او حول في مقاعد وصلوا كنا درس قبل